بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا خيارت أصحابتان جعل هاي جنال كيغان واني وعي قلين كحيران ولا ليال سود واد إن شاء الرحمن لما ولا لها نقع عصبنا وسود وين يحن ليها سود واد قام فرن كسود وادا هذه هذا نداوانين لفتقاق ولا لون كسود ويننا وحن كلنا هنا جنال كاديات كعصبت هاي فضلا جنال كسبسكرايب نودي قنبليل كان فرص مر والبوح عصبان صودقنا يكوسو قاران لما انتين آدي آدا أمهات سنتين إن شاء الله أخيار أصحابي ما أنتو حان ربعنا إذن لو ذاك سدح داس أرين إن شاء الله قفكي ما ركتا مالين نمدي سكوب بالله بس سدح داس أرين إن شاء الله وحاول كل مدونا وحيتهاي وحفر حد قليو وحكالنا ما أهنا معني وحن كوضع مالين تاسيتي وحين نلشيس ku qaadan doonaa waxay tahay farxad reyn iyo sacaadi liibaan insha Allah sidaan wada ognahayna waxaad ogtihiin in dadku si ay u helaan sacaado ama farxad ama si ay u helaan ma aragtaa waxa ay ku bixiyaan lacag fara badan waxa ay ma aragtaa waxyaabo fara badan ay u isticmaalaan si ay farxad naftooda ma aragtaa u hesho marka adiga oo aan qarash badan isticmaalin oo aan ma aragtaa lacag badan aysan ka bixin oo aadan wareer kale isgelinin saddexdan arrin bas oo iska fudud oo iska sahlan waxa waaye haddii aad sameysid waxa weeyaan insha Allah maalintaas wuxuu ku noqon doontaa maalin qurux badan oo ma aragtaa insha Allah jawigeedan uu ku noqdo jawi degan oo aadan ma aragtaa dareemin maxay heetoole murugo iyo ma aragtaa farxad la'aan wixii lamid insha Allah saddexda arrin horta mid kamid ah waa hubanti in qof walba islaam uu sameeyo labada kale intoodna insha Allah waxa laga yaabaa qaar badan inaga mid inay sameeyaan laakiin aysan hal majlis iyo hal goob aysan ku sameynin ama subaxnimadii markay ay soo kacaan aysan saddexdan arrin insha Allah aysan isku mar sameynin laakiin ay marar kala duwan sameeyaan marka muhiimadu waxay tahay in saddexdan arrin subaxdii markii aad soo kacdo adigoo aan wax kala sameynin saddexdaas arrin hadii aad sameysid waxa insha Allah isbedel iyo farxad ayaa dareemi doontaa midna ogaado ku darsada mar walba waxaan jeclaa waxay tahay wax la sameeyay la soo tajrubiyay ama nafteeda ama naf kala dad walaalo saalixiin ay sameeyeen aan jeclahay in idin la wadaago waayo mar raba ani waqtigiina idin ka dhumiyo annakeena iska dhumiyo sababtaas daraadeed marka waxaad ku bishaareystaan arrintan inay tahay arrin la tijaabiyay oo ma aragtaa dad fara badan ay tijaabiyeen natiijadana ay heleen insha Allah idinkana hadii aad tijaabisiin waxaan rajeynayaa waxay tahay inaad natiijada heli doontiin warkayaan ku dheeraanay saddexda arrin hadii aan idin soo hormariyo أنا إن شاء الله كل دقيقة دونه لكن مرة قررت سد وضوبها ده هو شيء وحتى مد كوادي صلاة الصبح مد اللي بعدنا وحيت هاي ورتو قررت أنا مد اللي بعد وقلين هدي عن صلاة الصبح وحير إسدول تاجنو صلاة الصبح مجبيهان بصلاتها قفك مسلم كوحن أجنه هيني واجب كته وحن أجنه قفك صلاة كتجو إن ما أركتا علماء أي جوانب فربضن وجهدلان ولبن علماء أنت سد بدن سي وبدينهن وحي شيغان إنه ما أركتا قف كاسيتي وميسك أسارين هاي ونا ما أركتا مسلم نمديسي قال نمديس لسكو هستو marka maxay heetoole horta waa musiibo weyn qofkii ma aragta salaadaha ka tago mid kale intoona salaada subax waxa ay fadli dheeraad ah la ka dheertay salaadaha kale oo way nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay qofkii salaada subax tukado in ma aragta uu dimada Allah raxmaanka uu ku jiro uu amaanada Ilaahay ku jiro marka qofkaasi insha Allah mala kulmi doono wax dhibo waayo qof Ilaahay amaanadiisa ku jiro de waxa waa Ilaahay himaayadiisa ilaalintiisa ku jira sumahan shayaadin insi wal jinni labadaba waxa waa Ilaahay waka ilaalin doona insha Allah sidaas daraadid salaadu waxa weeyaan subax aad bi fadli dheeraad u leedahay mid kale intoodna waana la salaadaha ma aragtaa qofka mu'minka lagu amaanay munaafiqana lagu eedeeyay kamid tahay waa salaada subax iyo salaada cisha san wada ognahay waa labada salaadood oo munaafiqiinta ku adag laakiin dadka muslimiinta ama mu'miniinta way u fudud tahay taasna fadli kale dheeraad ah salaadaha la dheertahay waa salaada subax sidoo kale intood salaada waxaad ogaataan qofka waa shayga ma aragtaa ugu horeeyo aad ka fiirinaysa hadii aad rabtid qofka inaad ogaatid diintiisa waxa lagu dhahay waxaad fiirisaa salaadiisa qofkaas hadii ay salaadiisa wanaagsanaato waxa weeyaan ama ay wanaagsan tahay ama uu yahay qof salaadaha ku dadaalo oo waqti siiyo oo ma aragtaa aan dayicin oo aad ma aragtaa wixii hadii uu yahay uu qofkaasi waa qof ma aragtaa ma sha Allah lagu kalsoonaa kara diinna leh taas waa taas salaada subax mid labaad waxay tahay quraanka hadii aad ma aragtaa markii aad salaada subax tukatid salliga aad salaada subax ku tukatay hadii aad quraankaaga juz ama xisb wixii maalintaas aad ugu talagashay oo wardi ku ahaad akhrisin jirtay hadii aad akhrisid insha Allah ayadana waxa weeyaan
isbedel weyn ayaa dareemi doontaa. waayo qur-aanku sidiisaba asaga ayaa maaragtaa dadka bani aadamka ah idma-inaan geliyo oo isaga ayaa maaragtaa muslimiinta maxay hetool waan ognahay shifaa iyo raxmaba inuu mu'miniintu u yahay. sidoo kale qur-aanka waa xasilooni qofka qur-aanka akhriya ee daa'ime ee maaragtaa maalin walba noloshiisa ay ka mid tahay qofka kale wuu ka xasilooni iyo deganaansho badan yahay. taasna wax la tijaabiye waayo qur-aanku waxa weeyaan laguma soo koobi karo fadligiisa iyo waxyaabaha laga faa'iiday inta aakhiraba la gaarin adduunyada dusheeda. waxyaabaha qur-aanka qofka akhriyo uu maaragtaa ka faa'iido wax aan hadda video yaroo saacado soconay aan kaga hadli kara ma ahan. marka midda labaad waxay tahay iyadana waa qur-aanka aqri maalintaas salaada subax markaad tukatid salligaaga aad ku tukatid aad ku fadhisid aqriso qur-aanka ee maalintaas ugu talagashay adigoo aan wax kala sameynin shaqadaadan aadin dab aadan shidin howl kale aadan qabanin isku xiji labadaas arin. midda saddexaad ayadana waxay tahay waxa weeyaan adkaaru sabax haddii aad akhrisid ayadana waad ogtahay fadaaisha ay leedahay. subaxnimadaada adkaaru sabax aad ku bilowdid waxa weeyaan subax qurux badan iyo maalin maaragtaa gebi ahaanteedba ilaa laga gaaro adkaarul masaa waxay ku noqon doontaa maalin qurux badan insha allah. tijaabiya saddexdaas arin haddii aad hal majlis iyo hal goob aad ku sameysaan welibana bacda salaatu subx hadaad sameysaan waxa weeyaan insha allah faa'iidooyin fara badan aad heli doontaan noloshiina isbedel maaragtaa aad u weyn ayaad ka dareemi doontaan. midna ku darsado oo qur-aanka salaada subax la akhriyo waxa uu ilaahay aayad qur-aan ku sheegay inuu maalinta qiyaamo kuu noqon doono mid marqaati kuu ah. aayada ku jirto waxaan jeclaa inay ku jirto suuratul huud haddii aanan qaldaneen. aayadaasita waxay maaragtaa ka hadlaysaa waxay tahay aqiimi salaata liduluuki shamsi ilaa qasaqi leyli wa qur'aani alfajr ina qur'aani alfajri kaana mashhuuda. qur-aanka salaada subax la akhriyo aada loo ammaanay bacda salaada subx qur-aanka aada akhrisid waxaa weeyaan wuxuu kuu noqon doonaa maalinta qiyaamo mid kuu marqaati kaco insha allah. ilaahay hanaga dhiga kuwa saddexdaas arin subaxnimadooda ku bilaabo ilaahayna hanoo fududeeyo shaydaankii naga wahsi gelin lahaa ama maaragtaa naga caajis gelin lahayni ilaahay hanaga qabta insha allah. waa rajeynaa saddexdaas arin inaad soo tijaabin doontaan natiijo qurux badan insha allah aada heli doontaan. aada iyo aada ugu mahadsantihiin dhageysiga ama daawashadaad fideogigaan daawateen insha allah. fideogan xiga intaan ku kulmeyno waxaan idinkaga tegayaa waxay tahay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.